shir aad u ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda ka soo jeeda beesha Digil iyo Mirif ee ku dhaqan magaalada Jeddah kaas oo ay kaga soo horjeedeen heshiiskii ku dhex maray magaalada Addis Ababa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland isla markaasna ay ku taageerayeen warka ka soo baxay dhaqameedyada salaadiinta iyo malaaqyada ku sugan magaalada Baydhabo ee beesha Digil iyo Mirif kaas oo ay kalsoonida kala noqdeen dowladda federaalka ee Soomaaliya shirkan ayaa waxaa ka soo qaybgalay solidaanyaal malaaqyaal culuumudiin aqoon-yahano siyaasiyiin iyo dhalinyaro aad iyo aad u badan shirkan ayaa waxaa ka hadlay dad aad u badan iyadoo hadalladoodii ay ka mid ahaayeen ma fadaana inayni xad gudubo unba dadka xad gudubna marna diyaar man ihini dowladda Soomaaliyeed oo ma arda Hassan Sheikh madaxweynaha ku ay ma in sheegane inay tan xad gudub ni ata حد جود بان أرجوها إن أرنتتان دول كيدا إن ما أرداني دادلت بحالسيو مرنا رعلا ما كنا قدانا ما نكنا قد دون جيك ولي بوها معمول ولا كهذا الله هاي ولا يدول الدهور يالي أو إيه كباق ستبا ويكميت يادو السنة أندم هذه إني إيه ولي تبوا هشيسين لأروب يادو قبضوا وايتو إيه حتى لي إيه ترى مرنا حتى تبوا هشيسين قبضان تنكال ولي بوها معمول وسمين تقبل هذا سيتو برنامج كيسو مركا ولي بواها ولا نسين لهواها dadka goobta ka jaro ma aragne xildhibaanadii oo umadimathilu hayo wakiiladii hay yogi arantan ma aragne go'aan hi ku deeren go'aan jono koomidaysan hehaado iyo ka shal qaybsiin ay naganeen maysi sheegay Digil Mirifle oo xaqiiqda si sheegay arantan hadda dhiidi Addis Ababa ku dhiidi oo lan Digil Mirifle aan roogna oo muuqdo aan ku hadalna ani arintan mayba ila ata inta madaxweynaha iyo dawladda daruuf hadda aan ka kalafna ajantaha awal badhisanaay waayo siyaasad arin lagu raadinayo arintan managadaas war umadu ma aragaasanaysan war may parliamentary adaka ataway war ninka markuu parliamentary iyo hatta adis baasida dhiibata hatta almeena fiiri dadka walaalaha oo gadaalka baabaayaan ما في رياض سبب كلا تاني بس ده أنت كوي حقيقة ويرنتو أنا بهم كشجعان أون هوبها أنه قلها مراقيال كهوب أنه وبكلا دت أو برلمان كويدين وبر ما إسن كورم وايتين لكم وأنا دت كي دولة نصوبيا أنا دقيق المرف إرني مدحوين نصوبني لما مدحوين نصوبني كسي على بابا صوبني سيد علي صوبني وركاسة تادي إسني رهلا هايتين هتاني احتراف هايتين حتى المين جيج ولا هم بكوي لهايني dadka wala ilaa meeya booraya may waxa Digil Mirifle wal qabsado ilaa boorahay Digil Mirifle lang adan fadhiyada male lang adan sugaas male markoo has muujida araare ahayd araare reediye dhamati hanoolaw hata baaga ko weerahay madaxweyne ka dhawaaq lang ilaahay abuuray aad wal ku sugaas male maynka baaqaane marka qabaa'ilada oo arintana shaq in ka lahayn marxaataha ku nagadeen korjoog ha ahaadeen ha fiirsideen laakiin hadallada qaar shoo ma in maleeyay olaad kale ina dhaliyayso muweelo kortaan iyo baydhow dawladda leh may la si yaab leh may ku si yaab badan may ku yaab badan maanta isla dhuusido hayne ciidamada dawladda gobolka Baay ciidamada dawladda gobolka Shabeellada Hoose ciidamada dawladda gobolka Bakool ciidamada maamulka Johor ciidamada maamulka Hiiraan may isin dhigin inta aad isin la ciidan atiina una lay dawladda nin nagadeeye waa walla la yaabo haddaba shirkan ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Jeddah beeshooda ku abtirsata Digil iyo Mirif ayaa wuxuu ahaa mid dadkii ka soo qayb galay ay wajigooda uu ka muuqday cara ama xanaaq aad iyo aad u badan taas oo ay ku tilmaameen heshiiska ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dhexmaray dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland inuu yahay heshiis baatil ah isla markaasna waxay ugu baaqeen dowladda in ay ka noqoto heshiiskaas iyada ah isla markaasna waxa ay ku taageereen banaanbaxyadii ka dhacay magaalada Baydhabo isla markaasna go'aanadii ka soo baxay oday dhaqameedyada malaaqyada
salaadiinta ku dhaqan magaalada baydhabo taas oo ay ugu baaqeen xildhibaanada ku sugan magaalada muqdisho in ay dib ugu soo noqdaan magaalada baydhabo isla markaasna ciidamada ku abtirsagada digil iyo mirif iyagana inay ku soo xaradaan sida ugu dhaqsaha badan magaalada baydhabo maxamed xaaji cumar TV-ga caalamiga ee Royal TV magaalada Jeddah